السلام عليكم داوده kusoo dhaw mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo kaga soo gudbino boogeenan bukaan deeq magaciiguna waa Dr. Xidig kuleelka ama hurka in laga dareemo cagta qaybta cad waa xaalad la soo dirista qaybo badan oo bulshada kamid ah mararka qaar waxa soo raaca kabaabyo ama gariir inta aan guda galin mowduuceena fadlan hadii aad nagu cusub tahay hanaga hilmaamin subscribe-ka hadii aad kamid tahay asxaabtii horena like iyo share ku waa xagaaga hadii aan guda galno mowduuceena caga hurka ama kuleelka cagaha laga dareemo waxa ugu badan ee sababa waa caabuq ama culays la soo dirsa neerfaha quudiya cagta sidoo kale waxa jiri kara in xaalado kale oo qofka la soo dirsa oo caafimaad darro isla markaana sababi kara kabaabyada kuleelka iyo gariirka laga dareemo cagta xanuunadaas waxa kamid ah sonkorta qofka qaba isla markaana aan xadeynin sonkortiisa oo heerarkeedu ay sareeyaan sidoo kale waxa kamid ah cilado ku dhaca qanjirka lagu magacaabo thyroidka ee dhuunta ku yaala isla markaana maamula dheefshiidka waxa kale oo kamid ah weynta fitamiinka B2 alifka iyo B6ka iyo sidoo kale folic acidka kuwaas oo keena kabaabyada ama kuleelka laga dareemo cagta waxa kale oo keeni kara infection daahay isla markaana gaaray kaliyaha laguna magacaabo chronic kidney disease sababana wax lagu magacaabo uremia oo ah in kaadida qofka uu dhiig soo raaco sidoo kale waxa keeni kara caabuq ku dhaca xididada quudiya cagta kuwaas oo lagu magacaabo vasculitis waxa sidoo kale keeni kara autoimmune lagu magacaabo Guillain-Barré syndrome oo ah difaaca qofka jirkiisa oo isla jirka dib u weerara isla markaana caabuq oo ka dhasho halka neerfahana oo caabuqaasi oo waxyeelo sidoo kale waxa jiri kara xanuuno kale oo keeni kara qaybna ka noqon kara in qofku dareemo kabaabyada kuleelka ama hurka cagta sida gabdhaha qaata kobaha dheedheer isla markaana cagta ku cadaadiya qaab aan loogu talagalin neerfuhuna halka cadaadis uu kala kulmo isla markaana uu soo saaro calaamadahaas muujinaya in caabuq ama culays oo la soo dirsay ama uu dhaawac gaaray neerfihii sidoo kale waxa kamid ah dadka atletiga ah ee qaata kobaha xiran orodkana badiya waxa ku yimaada calaamadahan oo kale kaas oo ay keenaan waxyaabo lagu magacaabo fungal oo ku dhaca cagta huursan isla markaana cadaadiska ku jirta maalintaas oo idil marka ugu horeysa oo culayska uu dareemo neerfuhu wuxuu fariin u gudbiyaa qaybaha maskaxda si qofkaasi cagtiisa loo dareensiiyo in xaalad adag ay soo wajahday isla markaana uu qofku dareemo culays xanuun kabaabyo ama gariir si uu wax uga bedelo noloshiisa inta kadib qofka markii xaaladaas la soo diristo culayskaas faraha badan oo dareemo waxa muhiim ah in check up loo sameeyo dhakhtarna uu la kulmo si loo ogaado xanuunka sababay maadaama waxa sababi karaahi ay aad u fara badan yihiin inta kadib waxa qofka loo diri doonaa baaris sida dhiig laga qaado kaadi loo diro ama raajo iyo aaladaha wax lagu sawiro oo lagu fiiriyo inta kadib marka la ogaado xanuunka sababay dawadiisana uu qaato wuxuu dareemi doonaa inuu tartiib u soo reysanayo hadii qofku uu qabo sonkor isla markaana peripheral neuropathy lagu magacaabo oo neerfaha cagta quudiya oo dhaawac la soo dirsay hadii qofku uu xadeeyo heerarkii sonkortiisa dawadii sonkorta loogu talagalay oo qaato waa ay ka yaraa doontaa culayskii ama xanuunkii uu ka dareemayay cagta sidoo kale hadii uu qabo cilado la xiriira qanjirka thyroidka oo dawadii loogu talagalay qaato xaaladdu isbedeli doontaa hadii fitamiin B2 alifka B6ka ama folate-ka uu ku yar yahay isla markaana wixii sababay oo xaliyo ayaga laftirkoodana uu dawo ahaan u qaato ama qudaarta cagaaranba uu qaato xaaladiisu way isbedeli doontaa sidoo kale hadii xididada ciladaha la xiriira uu qabo isla markaana uu qaato talooyinkii ku haboonay way isbedeli doonaan sidoo kale gabdhaha qaata kobaha dheedheer iyo dadka atletika ah hadii marxaladoodii hore ee wax ka bedelaan ee qaab noloshoodii ayana uu soo reysan doonaa neerfaha sidoo kale waxa jira wax lagu magacaabo home remodelis oo ah qofku inuu gurigiisa isku daweeyo hadii uusan dareemin xaalad adag isla markaana uusan qabin xanuuno sababi kara neerfaha dhaawac ku yimaada sida sonkorta dhiikarka qanjirka thyroidka ama kaliyaha uu ka jiran yahay kale hadii uu qofku qabin culays gaaban oo dareemayo oo aad u badnayn
wuxuu isku daweyn karaa gurigiisa ugu horeyn qofku wuxuu soo qaadan doonaa xanuun baabi'iyaal oo ka soo iibsan doono farmashiga kuwaas oo uusan uga baahnayn qoritaan inta kadib wuxuu soo qaadan doonaa weel godan baraf ayuu gelin doonaa cagtiisa ayuu saari doonaa cagtu waxay la kulmi doontaa kabaabyo ama in dareenku ka yaraado halkaas marka waxa iman doonta qofku in xaaladiisa si tartiib ah uga soo reesto marka uu isticmaalo dawooyinkaas oo soo qaatay xanuun baabiyaha ah sida ibuprofenka ama diclofenac iyo kuwa la xiriira barafkana oo waqtiyo badan geliyo isla markaana creamiska xanuunka yareeyo oo qaato iyo sidoo kale fitamiinada B12 B6 iyo sidoo kale folic acid iyo sidoo kale khudaarta cagaaran iyo raashinka qolofta leh sameeyana isbedel guud oo ku saabsan noloshiisa waa mahadsantiin